wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa mustaqbalka gobolka banaadir iyo waxa laga yeelaya maamulkiisa. toddobaadkii dhowaa waxaa soo shaacbaxay khilaaf u dhexeeya madaxda dowladda iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir, taasoo keentay in xilka laga qaado guddoomiyihii hore taabid cabdi. guddoomiyihii hore oo ka waramaya sababta keentay xilka qaadisiisana waxa uu sheegay in muranka uu salka ku hayay masiirka gobolka banaadir. arrintaasi ayaa u muuqata mid soo kicinaysa su-aalo ku aadan waxa maqaamka ama maamulka uu yeelan doono mustaqbalka gobolka banaadir uu noqon doono, ma mid dowladdu ay soo magacaawdo mise mid lasoo doorto maadaama dalka uu noqdo federaal. waxaa ka qayb galaya barnaamijka cabdiraxmaan xooj jibriil, wasiirka dastuurka dowladda federaalka, diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah, iyo brofesor yaxya sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowr oo gudaha dalka iyo dibaddaba ku yaala. marka hore kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhammaantiinba. aan ku horumara wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xooj jibriil, muxuu dastuurku dalka ka qabaa in gobolka banaadir uu yeesho maamul u gaara oo dadka degani ay soo doortaan? dastuurka wuxuu ka qabaa qodobka sagaalaad ee dastuurka wuxuu leeyahay horta caasimada soomaaliya waa muqdisho leeyahay. ko wuxuu leeyahay maqaamka caasimada ay ku lahaan karto dhinaca federaalka markii federaal la samayn doono waa in laga munaaqashoodaa dib eegista dastuurka heshiiskii laga gaaro lageeyaa oo baarlamaanka si yaala hadda socoto. hadda waxaa socoto dib-eegista dastuurkaa socota. marka horta ko soomaalida inay kasoo gaarto waaya yani wada heshiis maqaamka caasimada weliba yani arrintan federaalka xagee ka gelaysaa wax kalena ma aha. andadaas waxay leeyihiin jubbaland keligeeda samaysmatay, galmudug keligeeda samaysmatay, waa run waayo hirshabelle keligeeda samaysmatay, laakiin caasimada lama mid aha. sababta caasimada wadanka dhan waayo. caasimada wadanka dhan dadka dhan ayay ka wada dhexeysaa. marka in la helo waa aragti oo cad oo mataqaanaa laga midaysan yahay oo laga soo wada heshiiyo maadaama wadankan dhibaato kasoo dhacday. dhibaatada meesha ugu weyn ka bilaabata muqdisho ahayd, caasimada ahayd oo ka bilaawda. marka in inta laisku yimaado yani laga wada yeesho aragti lagu soo wada heshiiyo oo maqaamkan u noqonaya yani hadda sidaas taalo saddex mataqaanaa aragtida taalo oo caasimada inay noqotaa caasimada isla markaasna ay ahaataa maamul goboleed jubbaland kulliga iyo puntland waa hal mataqaana aragti kale waxay leedahay ha noqoto sidii ottawa oo kaleeto oo ah gobolkan banaadir aa jiro laakiin meel leela laga dhex gooynaya xamar dhexdeeda oo dhamanaysa caasimada. ama waxay jirta aragti kale lahayso caasimada iyaysan federal noqonin state laakiin ha noqoto sidii washington d c oo kaleeto oo ah magaalo hoos timaado dawladda dhexe. yani waa wax laga wada hadli karo waayo, laakiin in laga wada hadlo aada yani ufiicanta. haddaan laga wada hadlin oo inta mataqaanaa xamaasad inta naqaado wax ka sameyno yani dhibaatay keeni karto. yani wadankan waxa kasoo saaran ceel baa laga soo saara wadankan yani 2000 ceelkia weliba laanta laga soo saaraya. marka saaritaankaas la saarayo waxay u baahan tahay oo mataqaanaa xasaasiyada la dhowraayo in wax walba oo ku saabsan yani wadankaasi cagihiisa loo dejin lahaa. waa mahadsantaa wasiir xoosh. waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa diini maxamed diini. haye diini. bismillahi raxmaan raxiim. wasiirkayga xoosh oo runtii anigu shaksiyan aan qadariye ah iyo professor caamir oo isagana lamid ah oo aqoon-yahan soomaaliyeed oo runtii aada nog weyn waa salaamaya. sidoo kale dhegaystayaasha iyo b o edan umahad celinayo. runtii anigu sida uu u sheegay wasiirku wax badan kama duwani aan ahayn yani su-aasha ah in la furo. wasiirku wuxuu ogol yahay in arrinka laga doodo oo laga wada hadlo oo yani aragtiyaha kala duwan midkay doontaba hala qaatee laga wada hadlo. kaliya waxaan meesha muqdisho aan qaban ama caasimad soomaaliyeed ha noqoto ama maaragtay ha loo qaybiyo dadkii deegaanka deganaa iyo maaragtay qayb kamid a caasimadii labada aragtiyood midkii doonaba hala qaatee
in aan marnaba laga wada hadlin oo inta afka laga xiro dawladdii sheekh shariif ay ka tagto tii maaragtay xasan sheekh ay ka tagto tanna ay ka tagto macnaha faylka magaalada muqdisho maqaamka magaalada muqdisho waxaan laga hadli karin oon dood laga furi karin oon dadka degan aysan haba yaraatee wax conseenkooda muujin karin ayaa aniga waxaan u arkaa inaysan ahayn waxaan meesha qaban laakiin inta kale in laga wada hadlo oo wax un lagu heshiiyo waa runtii aniga ra'yi aan la qabo waa mahadsan tahay haye professor yaxya horta aniga dastuurka waxa ku qoran oo dhan waa kasoo horjeedaa dhowr sababba dastuurka horta dastuur la ansixiyey ma aha dastuurkii lagu soo heshiiyena ma aha markii kenya lagu diyaarinayay jawaalina waa ila joogay 5 bilaan ka shaqeynaya qaybta resource sharinka ku qoray dastuurka UN ay maalgelisay ee dhamaystiraya la keenay waxaa lagu bedelay 48 saac miiska waxaa la soo saaray dastuur la bedelay dabcan waxaa maqlaay ma huwa laakiin xoosh isaab ka jawaabi doona asiga mid wax ka bedelay kamid ahay odayaasha gacmaha taagaa la yiri waxa isku qasayna waa dastuurka caasimada marka laguma maamuli karo dastuurka dadka la Ottawa waa asaas Washington asaas war anaga Soomaaliya Washington la miira Ottawa la miira 4.5 la miira anaga sameysana xalan u aragnay marka nin tuuqra soo saaxda asaaga Soomaali 4.5 tuurada duudkada ku taal si u saaxiisida laga rabaa laakiin maaha in oo liira caasimada kaliya dadka dhaxayso wax kale oo ka dhaxay ma jiro waa run aan isku sheegnay hadda calanku xataa naga ma dhaxayo hadda Soomaali dhahay qaala calanki rabin gubay kuma jiray calam ka sameeyay maxaa caasimada kaliya marka ugu aniga gobolkan ka imaday odayaashii oo gobolkayga waxa maraan diyaarad ka saarna waa tagnay xagga laga soo iska soo dooranay odayaasheen baarlamaanka ay loo yimideen ma kuwa xamala hadda xaqooda la qaybsanay tikriga xaq ku soo qaata soo dulmi ma taas waxay naqanaa inaad aasaysid qarax bari jiilka daba haddii aad caburisid waa in muuqataa waxaa la yidhi beerley waxay heshiis ku tahay madax uu rasala wada bajiye soomaalida dhan waxay heshiis ku tahay xuquuqda xamar aan qaadano haddii la qaadano ana raalli ka teedil meel ay taala kana waxba ka qaadana dulmi cadana u arkaa waa mahadsan tahay haye wasiir xoosh aniga waxaan leeyahay hadda kama ma tahay yaxay istuuqa la bedelo ama ka bedelo tadan awoodaas waxaa milyan oo Soomaaliya dastuur iyo inaan ka bedeli karo waa awoodaas isii waa la yaabanahay dastuurkan asal keliya dhaw siyaasiyiin kala badan saano kala qabto oo iska conspiracy theory ah dastuurkan haddaan haysano oo qalfooska aan haysano يعني شغل بالنص لو سو توفي او مصر السبيل انت يعني خيال بدنا كلام سو حلنا waxaan ku faraxsanahay ma ahayn waxa oo nasiiban inuu sida mesela loo baahan laakiin qof uu wax ka bedelo inuu kala hado faa'iido ugu jirto ma aqaan inuu dastuur wax ka bedelo awooddaas ma yeelin karin taas aan ka tagno anna waxaan rabaa hadda waxaan haysano waxa waaye arrintan oo caasimada ah waxa waaye muqdisho magaalo oo aad u qurux badan waaye oo aniga يعني أنا يعني وفي عن الوطن كتار أفكر لكن يبقى صوت عليه يعني صارت أفتكر والله كلام هنا بدي شايفه كسر قرن عن كل حرف اللي ما له حاجة يعني حتى بالفن ما له حاجة عن كل حرف مقامك ما له مرتين because هواية يبقى صوت عليه يبقى صوت عليه إنه يقول هذا كان wasiir xoosh halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo in ka badan 2 milyanaa la sheegaa inay caasimada ku nool yihiin haddii gobolka uu federaal noqday oo dowladii guud oo caasimadeeda xamar ahayd laga soo tegay maxaa diidaya in dastuurka la fiiriyo oo dadka xamar degan xuquuqdooda la fiiriyo oo la yidhaahdo dadkan waxay xaq u leeyihiin nidaam iyaga matala inay keensadaan maxaa ma xamar keliya uga dhiga dowladda dhexe waa su-aal fiican waaye horta runtii waxa waaye xamar hadda yani waxay ku faantay anaga ku faan caasimadii wadanka iyadaana yani hoos u ah dowladda federaalka waaye laakiin waxaan gaarnay in la yidhahdo hala sameeyo federation hala sameyso dowladda hala sameyso waana la soo raacay ilaa had laakiin hadda midda timid waxa waaye يعني gobolka banaadir iyo caasimada muqdisho yani maqaamkeeda seekayalnaa qof dhahay ma jirto caasimada maaha muqdisho waa kulliga waxa ku qoran
qodobka sagaal waxay ku qoran caasimada soomaaliya oo muqdisho madana maqaamkeeda in laga wada hadlo waayo nidaam waxa waaye gobolkaasi banaadir yani saddexda option haday soo sheego kay noqonaysaa yani caafimaad weyna ku jiro wax kale maaha caasimada maadaama ay tahay capitalka ay tahay caasimada inay tahay meel loo wada siman yahay meel laska wada arki karo ay diversity ka jirto shaqooyinka kontraagyada deegaanka kulli loo wada leeyahay lakin hadday noqoto caasimad ay noqoto hal community keliya ama hal keliya ay ka helaan munaafacaad ka helaan ma noqon karto marka arrimahaas in la adres gareeyo waa mahadsanta yani soomaalinimada waxaan kusoo celinayn waa mahadsanta waxaan siinayaa diini maxamed diin arrinta uu sheegay wasiir xoosh ee ku saabsan in haddii xamar la yidhaahda ha noqdo maamul laftirkiisa oo wax badan halkaasi ku weyn doono oo aanu sii ahaan karin caasimadii dadka ka dhexaysay haddii maamul gaara loo sameeyo iyo tan kaloo ah inaanay jirin dad isku tega oo u diyaara ee codsanaya in la sameeyo maqaamna loo yeelo gobolka banaadir labadaas ciladood ma jirtaa wallahi horta aniga waxay ila tahay shirka hadda la baajiyey oo runtii dareenka laga muujiyey oo annaga haddaan bulshareed ahaan aan nahay aan taageernay runtiina welwel badan nagu haya sababaha iyo dareenka dhaliyay in shirkaas la joojiyo waxaa la rabay in looga hadlo in lagu soo bandhigo dadka shacabka magaalada muqdisho jooga waxa ay qabaan oo ay tabanayaan kabacdina loo soo gudbiyo maaragtay golaha wasiirada iyo labada aqal labadaba si maaragtay cabashadaas dadku ay ka cabanayaan madaxdu ay u wada hadlaan taas horta waa mid oo haddii la yidhaahdo qof rabay in laga hadlo ma jiro taasaan ka leeyahay midda ku saabsan waxay weyneysaa xuquuqdii caasimadda anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu caasimadda asaga maaragtay doorto oo political consensus ay ku timaado marka taas in laga wada hadlo meeshii caasimadda ay noqonayso iyo meeshaysan noqonaynin waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo iyadoo masaalixda iyo istaraatiijiyada qaranka la eegayo aan tan qabaa'ilka aan la fiirinayn in ayadana laga wada hadlo laakiin dhibaatada ugu weyn dawladihii hore lasoo maray oo dalka xukumayay iyo kuwa hadda joogaba naga haysata waxay tahay caqligii caadiga ahay oo caafimaadka qabay marnaba laguma shaqaynayo laakiin caqli qabiilaysan oo runtii sumaysan oo aan aragtidiisu keliya cabir laga qaadanayo maaragtay dagaalkii xarbul ahliga keli ah oo aan cabir kale oo umadnimo iyo maaragtay maslaxada caamka aan waxba laga fiirinin taasa annaga culays weyn nagu haysa marka annaga waxaan qabnaa dhinacee doontaba ha u dhacday horta in la aqbalo in laga wada hadlo oo arrinkan doodiisa la furo waa mahadsan tahay midda kaloo ku saabsan waa kuusoo noqon doonaa diini waxaan rabaa professor yaxya inaan siiyo haye professor yaxya horta wasiirka waxaa uga cudur daarana asigaa bedela ma dhihin waa maqlaan inuu guddigana waa ku jiray laakiin waxaan hubaa dastuurkaanu ma aha kii runtaa lasoo diyaariyey kama soo tagtaa caasimadda marka laga hadlaayo haddii caasimadnimadu ay dhib u keenayso dadka ku nool xamar maxaa diidaya caasimadda in laga wareejiyo oo magaalo kale la geeyo ama 6 bilba inay magaalo soo ahaatoba dawladdu ma wada degan caasimad dad shacabaa degan dawladdu meel kasta waxay ka heli kartaa guryo ku leedahay gaalkacay guryo ku leedahay baydhabo guryo dawlada ku yaal in ay degto iyagaba oo jaamacad haddii ay caasimaddu mid faa'iido lahayd ay laqato laakiin marna suuragal laqamay in la yidhaha baarlamanka iyo dawladda go-aan ka soo gaarayo war meelaha kaleba dadka deegaanka deganaaya go-aan ka soo gaaray maxaa looga leexleexana haddaad runta sheegto waxaa leeyahay waa fikir qurin oo qabiil oo saarahayo haddii la dhacaayo dadkaan aniga ma jeclo inaa bini aadan xaqiisa dhacee anigu gobolka aan ka imiday waa i calaamadaysan yahay waana deganahay dhibna kuma qabo laakiin caasimad aad tahay darteed inuu qof xaqiisa ku waayo haddaa maxaqeeda ku weynaa inaa caasimadnimada halaga qaado kuleeyahay caasimadda waxay in xuquuq zaa'ida ku helo laakiin baarlamaan soomaalida goynaayo baarlamaan waxay usoo saaraya waa qiyaasi kartaa kulligood waxay ku heshiinayeen in dadkaas xaqooda la duudsiiyo waana walaalka waad khiyaamta adiga laftaada kuma fiicno waa mahadsan tahay professor heli kartid wax adiga walaalka aad ku heshiin kartid inaad abuusa aad ku isticmaashid waa khalad kale waa mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir xoosh haddii dastuurka uu dhigaayo in maqaamka gobolka banaadir ay baarlamaanka go-aan ka soo gaaraan oo laga wada hadlo qorshaha ma idinkugu jirtaa in ka dowlad ahaan ka wasiirkii dastuurka arrintaasi aad furtaan maadaama arrintan ay tahay arrin taabanaysa malaayiin qof oo soomaaliya dad badanna ay walaacooda ka muujiyeen
run ahaan horta arrintan sida hadda loo dhigay maba ahabo oo ma aha maqaamka muqdisho banaadir baarlamaanka wax ka gaarayo maba ahabo waxa waaye maqaamka gobolka banaadir waxaa laga galayaa sida ku qoran qodobka 9 ee dastuurka in munaaqasho laga galo ama dastuurka dhexdiisa lagu sameeyo ra-iisul wasaare xasan kheyre jadwalka uligana qayb weynay ka tahay arrintaas waana ku qoranta in aniga waxaan kamid ahay guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhanyahan kamid ahay oo barnaamijka xasan kheyre uu mataqaanaa uu hogaamiyo yani jadwalka noo dhin waxaa kamid a arrintaas in laga hadlo laakiin waxaan ku qoran waxaa waay ko in laga gaalo horta aragti siyaasadeed oo laga wada hadlaa soomaalida ay ka wada hadashaa markii laga soo wada hadlo maamul goboleed soomaali citizen isku mid kasoo wada hadla kabacdi markii lagu soo wada heshiiyo in la geeyaa baarlamaanka markaas baarlamaanka uu ka sameeya sharci lagu dejinayo haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaan waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegayno mustaqbalka gobolka banaadir iyo waxa laga yeelaya maamulkiisa waxaa ka qayb galaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka dowladda federaalka ee soomaaliya diini maxamed diini guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ah iyo brofesor yaxya sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowra oo gudaha dalka iyo dibaddaba ku yaala ansiya diini maxamed diini guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ah diina haddii dowladda ay hawshii wado oo sida hadda wasiirku uu sheegayo guddi la magacaabay guddigii shaqada ay wadaan muqdisho ama banaadir intaasba waa soo joogaya maxaadan u sugi karinaha xaggee tahay meesha aad ka tuhunsan tihiin tuunka xaguudi kaaga imaanaya falastiin aadaad umahadsan tahay runtii su-aashaas su-aal aad iyo aad u qiimo badan culayska horta wuxuu ka jiraa dadka hadda oo maaragtay doo arrinkan ka doodayo waa dad aqoon-yahano ah oo xog ogaalah oo mathalan xafiiska prime ministerka iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska baarlamaanka intaba waxa ka socda og waa ognahay annaga waxyaabahan ogna waxaa kamid a in qodobkan dib loo dhigay markii golaha wasiirada laisku soo qaaday in qodobkan dib loo dhigay oo ajandaha 2 sano kabacdi dib loo dhigay wasiirada dhexdoodana ay ku kala aragti duwanaadeen marka ma aha waxaanaan anaga waxba inta la keenay golaha wasiirada dib loo dhigay waxleeda kuma jiraan qorshaa jiro oo mataqaanaa guddiga mataqaanaa siyaasad loo leeyahay ah guddigaasa waxaan keenay laakiin wax inta laisku soo dib loo dhigay ma jirto waa ku qoran tahay jadwalkay ku qoran tahay anytime aa laga bilaabi karaa laakiin ma jirtaa wasiir xoosh ma jirtaa in inta la keenay dib loo dhigay ama ajendaha dambe ay ku jirto maya ma jirto waxa waaye jadwal weynaa jiro oo ah wadanka dhan 2022 si lagu gaari lahaa ay kamid tahay dib u eegista dastuurka federationka si loo sameyn lahaa doorashooyinka ay kamid tahay mataqaanaa waxaas marka laisku laba khamiis ka horaan la baasgareeyey laga ansixiyey golaha uu ra-isul wasaaraha keenay marka wax dib loo dhigi maba jiraan badi waa mahadsan tahay haye diini dhamayso diini horta waxaan qabaa anigu qof shaksi mas-uul aan ahay mana rabo macluumaad intaas ka badan inaan publica soo dhigo laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay aad dib loogu dhigay oo laga wada hadlay dadka ciddii ka hadashay oo arrinkaas khuseeyana waa wada fadhiisanay waana iska wareysanay arrinkaasna arrin maaragtay hadda bulshada rayidka ka qarsoon maaha laakiin waxaan ka rabaa walaalkay wasiirkayga oo diina golo wasiire aniga aanan fadhinin ceeb waa taasoo kale wasiir aan hadalka dhamaysta aniga waxaan ka codsan lahaa waa sax in ay leedahay maqaamka caasimadda muqdisho inay xasaasiyaad leedahay oo deegaanada qaar ay ku kala aragti duwan yihiin laakiin aniga waxaan qabnaa bulsho rayid ahaan haddii loo dhigo arrinkaas ka hadalkiisa dib ha loo dhigo waxa laga cabsanayo oo maaragtay dhaawaca dawladda soomaaliya soo gaari kara midka ugu khatarsanaayo ayaa imaan kara waxayna keeni kartaa dhibaato hadda dawladda soomaaliyeed ay u baahan tahay in laga hortago dadka soomaaliyeed markay wada hadlaan hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday maaragtay shacab yihiin intaba annaga waxaan aaminsanahay bulsho rayid ahaan inay isfahmi karaan laakiin markii loo diido inay wada hadlaan oo arrinkan miiska lasoo saaro
oo haddii maaragtay madasha looga wada hadlaayo iyo haddii golo wasiire looga hadlaayo iyo haddii baarlamaan looga hadlaayo haddii arrinka la caburiyo la diido waxaan aaminsannahay inay waa mahadsanta diin oo kugu soo noqon doona siyaasiyan in isbaaro loo dhigtay in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda iyo madaxdooda arrinkan ka wada hadlaan waa mahadsantahay meesha annaga ay naga gubayso bulshariyad ahaanna halkaas waa mahadsantahay waxaan siinayaa professor yaxye sida hadda wasiirku sheegay qorshaha xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre waxaa ku jira in la isku yimaado oo laga hadlo arrinta gobolka banaadir wasiirku waxa uu sheegay inay ajendayaasha ka mid tahay haddii gobolka banaadir intaaba waa soo joogay hadda ay qorshaha ku jirta laga doodaayo maxaadan u sugi karin iyadaaba dulmi ahba aniga waxaan qabaaba dawladuna xaq uma le baarlamaankuna xaq uma le inay ka hadlaan shacabkeeda inay ka hadlaan ninka ugu horreeyey markii oo cabdullahi cosoble oo weli xamaraan maqaam u dhisaynaa xilkaa laga qaaday qaabilay xamaraan maqaam loo dhisa xilkaa laga qaaday xamar xasaanadiyaa laga qaadaa beledkana xasaanadiyaa laga qaaday madaxdana xilkaa laga qaaday war waxa dhabo soomaaliya marka la dhisaayo reconciliation hoosaa laga soo bilaabay maxaa loo diidaa in hoos laga bilaabo xamar oo leeyahay baarlamanaa go-aan ka gaara baarlamanka qaara ma aqaaniba xamar waxa ay tahay iyo caasimadu waxa ay tahay iyo marka haddii caasimadnimadu ay dhib u keenayso dadka jooga magaalada ururada halaga dhaafo caasimadaba xamar dhul iyo guryo meel kasta ku yaaliina laakiin ama ururadan bulshada iyo dadka deegaanka haloo dhaafo hoosa kasoo kalkanayaano wax lasoo diyaariyey hala hordhiga dawladda inay saxiixin laakiin iyadaa go-aan ka gaaraysa hadii la yidhaha fawdada ka dhacda weligeed ma dhamaanayso xataa haddii jajuum dawladda ay ku guulaysato waa miino aad aasto oo maalin un kugu soo qarxayso xal ma aha wadankaan calankaan laga dhexeyn aan kugu bilaabo hadalka calankaan qola diida si gooni ula baxday marka in la yidhaha marka kanaa naga dhexeey kanaa naga dhexayn astaanta labadii shabeel meelaan ku sheegna ma naqaan marka inta ayaan fawdo la bilaabine sida meelaha kaleba looga soo bilaabay heer tuulo degmo gobol baashaasa loo dhis waa mahadsantahay tixgeliyo dadka arrinta ugu dhimiday ilaa xamar aniga anoo socdaan imide dadka ugu dhimid aan ku tixgelin waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan siiyo aan wasiir xoosh ma jirtaa marka laga soo tago arrinta baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda wax qorsho ah ma ugu jirtaa in dadka xamar degan ay inta isku keento ay weydiiso waxa ay u arkaan mustaqbalka ay yeelanayaan gobolka banaadir ama maamul gaara ha noqoto ama ha noqdaan mid lasoo doorto ama mid dowladdu ay u samayseen dowladda ma furtay wada hadalkaas diyaar ma u tahay inay hadda furto oo ay ka qayb geliso dadka gobolka banaadir degan horta walaalka wuxuu ka jiraa waxa waaye saaxiibaden oo ururada bulshada ah waxaan jeclaan lahaa inay dastuurka akriyaan wadankan oo kusoo burburay horta yani in ummad markay wada joogto inay lahaadaan waa kala sabeynta sharciga noogu weyn hadda waxaa dastuuraan leenahay dastuurkeena waxbuu qorayaa wuxuu qorayaa qodobka sagaalaad wuxuu leeyahay caasimada soomaaliya muqdisho waa laakiin maqaamka ay ku lahaan lahayd federationka inay noqoto maamul goboleed ama inaysan noqonin in laga wada hadlo waa si dastuuri laga wada hadlo soomaalida marka yaa ka wada hadlaaya maya yaa ka wada hadlaaya yaase go-aan ka gaaraya su-aasha taas waa kusoo wada xigmada ku jirta waxa waaye caasimada rabta inaad wadan ka dhigatid sababta loo keeno caasimada wadan laga dhiganayo waxa waaye wax la wada leeyahay inay tahay waa maadaama la wada leeyahay caasimada in soomaalida ay ka wada hadlasho waa yani xigmada ku jirta prime ministerka iyo madaxweynaha taas burxadnima wax la wada leeyahay labada kun iyo labaatanka waxa looga hadlaayo ah inay ku darsaan dhahaan inaad ka wada hadlaan rabnaa waxay tahay in yani in xasilooni siyaasadeed si loo helo in laga wada hadlo soomaalida ay ka wada hadasho maamul goboleedada ay ka hadlaan soomaalida ay ka wada hadlaan maqaamkeen siinaa saddex mataqaanaa carabka ee jirto ko in sida hadda saaxiibka diin ku joogaa in maamul goboleed ay noqoto waxba mashaakil maa wax fiican waa caasimada ay ahaato ama inay noqotaa taas waa sidii berlin ay tahay ama inay noqotaa sidii washington d c oo kaleeto aysan maamul goboleed noqonin laakiin caasimad soomaaliyeed noqoto laakiin aragtideeda ay noqoto aragti soomaali lagu dhameeya ama inay noqotaa sidii ottawa oo kaleeto canada oo ah gobolka banaadir meel inta laga hayn daawo la yidhahdo meeshaasa caasimada ah intaba aragtiyooyin waa laakiin in laga wada hadlo waa yani sababta in laga wada hadlo waxa wax kale maha yani soomaaliya waa la kala sukiyey dhibaataa soo dhacday conflictkaa soo dhacday yani jadwalkan prime minister madaxweynaha waxa ugu daray wax kale maha in la helo in dib u heshiisiin la helo
kusalaysan wax dhab ah oo lala timaado. wasiir halkaasaan rabaa su-aal inaan kaa weydiiyo waxyaabaha hadda ay ku doodayaan saaxiibadaada dadku kugula jira waxay tahay taas laftirkeeda doodaas inay noqoto mid dowladdu ay keentay iyo baarlamanka ku eg maahane waa in dadka deegaanka la siiyaa fursad iyagu ay u wada hadlaan oo ay ku doortaan waxa ay rabaan. dowladdu diyaar ma u tahay dadka gobolka degan inay fursaddaas siiso? Okay, waa good question. waxaan ku jiraa guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhanyaa ama inclusive politics, waxaana hogaamiyo minister xasan khayre. waxyaalaha noo qoran jadwalka loogu jiro ilaa 2020 meel weyn ay ugu jirta arrintaas in dood laga bilaabo. doodaas keliya maaha inay ka bilaabato banaadir gudaheeda, laakiin inay ka bilaabato wadanka yani dadkii way naga horumarayaan iyadoon la gaarinba wixii hadii laga horumarana waa dhibaato. laakiin dooda waxay tahay wasiir in hadda ururada mataqaana rayidka waxaan jeclaan lahaa dokumentooyinkan waa la ansixiyey. waxaa la ansixiyey 2 khamiis ka hore public waay inay dashaan ay akriyaan. markay akriyaan oo ku dhisan cilmi ku dhisan wasiir waa kugu soo noqon doona waa mahadsan tahay. hay-adiini sidee u aragtaa in mustaqbalka gobolka banaadir iyo maamulka uu yeelan doono sida wasiirku sheega loo dhigo doodaasi ay ka dhacdo guud ahaan dalka oo dhan kadibna wixii lasoo go-aamiyo loogu xal raadiyo gobolka banaadir? horta waxaan qabaa waxyaabaha oo dhibaatadu ay ka taagan tahay waxa waaye wasiirku wuxuu u haystaa bulshada rayidku inaysan waxa cabinetka dhexdiisa ka socda inaysan waxba kala socon, amaba baarlamaanka waxa ka dhex socda inaysan waxba kala socon. annaga horta yani runtii shaksi oo aan aada u ixtiraamo waaye ninka la yidhaha wasiir xoosh, shaksi aan u aaminsannahay inuu yahay wasiir ka soko uu yahay soomaaliya waxaan waaye. laakiin waxyaabaha oo ay ka taagan tahay qofku markuu xilka qabto iyo marka uusan xilka hayn waxaad moodaa in farqi udhexeeyo. haddii qofka uu xeerinayo maslaxa ummad soomaaliyeed meel kasta oo ay ka imaan karto dhibaato oo qarannimada iyo jiritaanka soomaaliyeed oo hadda la raadinayo ay kaga imaan karto, waa in xalka lasoo dedejiyaa. annaga arrinka aan ku haysano dawladda waxa waaye yacni shacabkii oo dareenkii arrinkan yacni albaabka laga xiray fahmay oo yacni runtii kacdoon ka samaynayo oo ka hadlayo oo ka debate garaynaya. waa ujeedaa hadda professor yaxya wuxuu ka hadlayo yacni heer waxay ka gaarsiisan tahay war caasimada dhanba hana laga qaato meeshii la raba halakii. haddayba tahay caasimaddu waxa annaga xuquuqdeena lagu qaadanayo, annaga xuquuqdeena in la qaato diyaar umani. annagu marka bulsho rayid ahaan waxaan qabnaa in dib u dhigaasi uu yahay khasaaraha ugu weyn ee maaragtay horumarka iyo siyaasadda dalka soomaaliyeed haysa. guddiga inclusive politicska waxa ay ku wada hadleen shirkii u dambeeyey annaga xogaal aan nahay. marka waxaan codsanaynaa oo keliya war arrinka waddo kastaba ha qaadee albaab kastana ha aadee hal la dedejiyo in laga wada hadlo, in maaragtay ajandihii maaragtay inclusive politicska loogu dabamariyo oo December 2000 maaragtay 19 la geeyo. yacni waxay ahayd deliberate strategy ay ahayd in la fogeeyo macnaha ka hadalka caasimadda muqdisho. waxaa la awooday in quarterka koobaad ama quarterka labaad la geeyo sanadkan in arrinka caasimadda laga hadlo oo inclusive politicska ajandaha ay soo hormariyaan. si cadaadiska shacabka ka imaanaya ee magaalada muqdisho ka jira inta aanu isu bedelin siyaasad qalloocan. hadda wuxuu maraa rabitaankii iyo dareenkii dadku ay sheeganayaan, laakiin aakhirka waxaa laga yaabaa in siyaasad qalloocan ay isu bedesho. marka arrinkan intuusan waddadaas aadin in inta laga soo celiyo hadda lagu dhiirado in arrinkan doodiisa la furo. haddii muqdisho caasimad ma noqonayso, shuruudihiina ma buuxi karta, lagu heshiiyo waxba kama qabno, laakiin ay tahay si oo peaceful ah. haddii lagu heshiiyo muqdisho qayb ha loo gooyo dawladda, qaybta kalena dadka deegaanka hala siiyo, waa heer sare. laakiin mar kastaba su-aasha markii democratic principleska laga hadlaayo, qof muwaadina in la yidhaahdo meelaad ka codayso oo aad cod ka bixiso ma haysatid, adduunka meelay ka jirta lama arko. waa mahadsantaha diini. constitutionada caalamka 23 dal ee maaragtay systemka federal systemka ku haya documentigeedii iyo constitutionadeedii ayagoo copy oo hard copy aan wasiirka u keeni karaa. waa wada haynaa, waa akrinay. qof kasta oo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay qofka xukumayo inuu doorto. haddaad qofka muwaadinka u diidid because caasimadaad ku nooshahay, yacni ma qofkaad xukumayo ma dooro kartid,
meel ay meeshaas yani qodob noocaas uu caalamka ka jiro lama arko. waa mahadsantaha diini waa mahadsantaha waqtigaan nahaya dadka shacabka waqtigaan nahaya waa mahadsantahay professor yaxyaan siinaya professor yaxya adoo soo koobaya maxaa u aragtaa xalka gabagabadii barnaamijkan ku soconnaa anaka marka guddiga 20 dastuura naloo keenay jaamacad jarmal ku taal naloo keenay wada akrinay hal raacsan kuma jiro arruug arrintiisa loogama roona meel walba waxaa loo dhaqaa qaabka ay ku habboon tahay ma aha magaalo hebelaasaan ahayd magaalo hebelaasaan ahayd xamar dowladda dhexe faraha kala baxdo baarlamaan faraha kala baxo dadka degan ha loo yeero iyagu wax ay ku talay u arkaan maslaxadooda ha dhisteen dowladdu ha ka ogolaato that's all wixii aan ahayn hadda foodo socotay dhaqale haddayna maanta qarxina britain kugu soo dhaqale waqti kadib marka waa walaalka afka gacanta ka saartay haye waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xalka u aragtaa arkaa horta waxaan maraynaa marxalad oo asaasi ah oo ah ilmaha markay dhashaan ilmaha usoo baxaya maaragto ilmaha caaya baa ka daato xanuun baa qabto horta kii aan maraynaa because federation hadda bilowda waxaan kasoo baxday mataqaanaa meel dhibaato badane marka waxaa loo baahan yahay markaasoo kale in deganaan horta wax lagu gaara loo baahan yahay hadda ayaa layaro kasoo baxayaan nahay federation weligeed maarag hadda noo bilaabanaysaa yani in laga wada hadlo midda kale dowladda federaalka madaxweynaha iyo prime ministerka magaala dad kalaa ku haysaan udhahayaan war annaga waxaa rabaa waxa in laga wada hadlo maamul goboleedyada madaxdooda dhan madaxweyneyaashan kulli waxay leeyihin ma rabtiin in federation la sameeyaa maqaamka muqdisho inaan ka wada hadalno article 9 inaan ka wada hadalno marka yani waa dhagax iyo laba dhagax dhexdooda in la jooga marka waxaan aaminsanahay saaxiibkii diin iyo yaxya iyo intellectualka waxaan aaminsanahay inta madaxa geeyo halaysu yimaado hala wada fariisto si wanaagsan looga wada hadlo laakin yaan laga dhigin waa emotional haddii la banaadir aniga for example markaan aan dhashay jawara ku dhashay jawara banaadir ka mid ahayd yani emotional banaadir aan ka mid ahay yani waxyaalo badan aan ka qabanayo runti inaan ka mid ahay laakin reality in laga taga ma aha dhibaato weyn aa soo dhacdo wadankan in la wada fariisto waa in la wada hadlo waa madaxweynaha ibrahim masir intas ka baxan wax iskama samayn karaan waa inay la tashaan wada tashi weyn la sameeyo waa waa mahadsanta wasiir xoosh waa mahadsanta haye diini maxaa halka u aragtaa maya runtii meeshaas wasiirka uu ku khatimay oo ah hal la wada hadlo ayay annaga naga taagan tahay meesha dhibaatada aan ku qabnaa yaan marnaba la wada hadlayn afkana ha laga xidho waan diidanaha annaga inta la wada hadlo wixii maslaxa ummadda soomaaliyed u jirto dadkaasna xuquuqdooda ku helayaan in meel la dhigo waa ogolnahay wada hadalkaasna waa soo dhawaynaynaa waana xoojinaynaa waana kala shaqaynayna aada umahadsan tihiin wasiir mahadsanta intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynay toddobaadkan mustaqbalka maamulka gobolka banaadir maamul lasoo doorto mise mid la magacaabo waxaana ka qayb galayay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan xoosh jibriil diini maxamed diini oo madaxa u ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya iyo weliba brofesor yaxya sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowra oo ku yaala gudaha dalka iyo dibaddaba intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo